بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa bulshooyinka reer Somaliland. salaanka bacdi waxaan jeclahay inaan laba kelmadood ka iraahdo nin aanu bariyahan kala baadnay oo shalay isagaa isoo hormaray. ninkaasi waa Faysal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga UCID. ayaan daawaday clip yar oo shalay berbere uga qudbadeeyay oo uga hadlayo dadka berberade reere kala duwan baa degan, laakiin adigu reer unbuu yar sarbeebayaa sida uu hadalka u dhigay. reerkaasi waa reerka labada nin uu sheegay ee isaga caawiyey xisbiga UCID soo saaristiisii kala shaqeeyay. nini waa madaxweynihii labaad ee Somaliland Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. ninkaa wuxuu sheegay inuu UCID soo saaristeedii markii ururada iyo xisbiyada la asaasayay uu kala shaqeeyay inuu UCID soo baxo. waa runtii weeye. ninna waa Jamaal Cali Xuseen oo waxa weeye barigii dhaweed ee iyadana ururada dib loo furay xisbiga UCID ku soo biiray, isna qayb ka qaatay soo bixitaankii xisbiga UCID. taanaaba qayb ka ahaa oo raggii markii Jamaal UCID galay raggii waxa weeye la galay ee hawsha kula jiray baaban ahaa oo ana taa u soo joogay. Faysal labada arrimood buu sheegay. labada nin oo deegaan ahaan isku reer ka soo jeeda ayuu sheegay inay abaal weyn u galeen kana shaqeeyeen xisbiga inuu xisbiga UCID soo baxo labadii jeerba. marka halkaasaan doonayaa inaan kelmad ka iraahdo, ilaa ninka haddaad kala baadeen oo waxa weeye kala irdhooteen ma aha hadalka inuu ku soo hormariyo. anigu ma yihi kuwan reer berbera ee waxa weeye dee xildhibaannimada u sharaxan ee iska qoslaya ee iyagu ay tahay dee inay xildhibaanno un ku soo baxaan maadaama xisbiga UCID maanta ay ka sharaxan yihiin. laakiin anigu Faysal midun baan xasuusinayaa waxa weeye waa run weeye labadaa ninaad xustaba way jiraan, dad badan oo iyaguna abaal kugu lena way jiraan. laakiin su'aasha la isweydiinayaa waxa weeye marka aad sheegayso abaal, ninka ragga ihi ee gobta ihi waa ninka wixii loo galay celiye weeye. inta badan guntu ma celiso abaalka loo galay, laakiin gobtu wixii loo galay waa celisaa. reerkaa habar jecle la yidhaahdo iyo Sacad Muuse waxbay wada galeen, wixii ay wada galeen waa isku celiyeen. ciise muuse iyo ciidagalana waxbay wada galeen. wixii Faysalow lagula galay ma ka abaal gudday oo sidii gobonnimada lagu yaqaanay ma fulisay axdigii lagula galay? ilaan maalintii aynu xisbiga isku darsanaynay suldaankii guudna waa kula socday, ilaahay ha u naxariistee xaaji cabdikariimna waa kula socday, reerkiina mid kaama maqnayn. maalintii aad dhabarka naga qaniintay ee waxa weeye Muuse Biixi iyo afartii ganacsatada ahaa ay shilimaadka ku siiyeenna reerkiinnu waatay yidhaahdeen waa nin waalan oo waxba kama qaban karno. dee nin waalanna ilaahay baaba qalinka ka dulqaadayo wax laga baacsadaa meesha ma yaallaan. markii ay reerkiinnu yidhaahdeen ninku waa nin waalan ayaannu iska dhaqaaqnay. ilaa nin waalan ninka wax u sii raacdaa isagaa ka sii waalane. midi waa taa weeye. maalintii waxa weeye Muuse Biixi siilaanyo ay isqabteen ee gruubkii Samaale iyo Xirsi iyo ay madaxtooyada kaga adkaadeen, raggii soo gurmaday ee axdigii la wada galay fuliyey waxay ahaayeen waxgaradkii iyo salaadiintii habar jeclo. ayaa siilaanyo u yimi oo yidhi waryaahe reerkan axdi baynu la galnaye
axdigii fuli ninka raggaatiisa waa la qiraa halkaasi gobonnima weeye reerkaasi gobonnimay sameeyeen axdigii ay galeen bay fuliyeen adigu ninkii Faysalow noocaa ahaa haddii hawshii dhammaatay oo maanta lagu kala faataxaystay inaad wixii dib u soo celiso tiraahdo wallaahi reer berbere berigaana abaal bay ii galeen wakhtigaana abaal bay ii galeen inaad raacisay ahayd gunnimadii aad adigu samaysay inaad raacisay ahayd oo labadaba aad ka sheegto wixii abaalay kuu galeen iyo gunnimadii aad ugu abaal gudday laakiin waxaasoo dhan waxaan kaga samrayaa markii aan maqlay ninkii aad dembiga intaa le'eg aad u gashay ee Muuse Biixi ee aad tiri caagad buu laabta iiga dhuftay hooyadayna waa caayay xafiiskana ka bax buu igu yidhi maalintaasaan gartay in nafsigii iyo xaqiiba kugu dilaacay wassalaamu calaykum intaa un baan kugu talagalay inaan ku xasuusiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh